saad ogtihiin ba social mediaha ama ha noqdo facebooka ama ha noqdo youtube-ka ama ha noqdo tiktok ha noqdo dee aalada ugu ballaaran ee wax lasoo bandhiga ah midku dooniba ha noqda ee waxaa qabsaday gabadhii yarayd ee soomaaliyeed dhibaatadii uu kula kacay wiilkii dhallinyarada ahaa. wuxuu sameeyey wiilka dhallinyarada ah sidaad arkayseenba gabadhii intuu qabsaday oo uu sida rag u qabsado ama nin u qabsado intuu u qabsaday ayuu bugta ka saaray. gabdhihii baa damcay inay u hiiliyaan oy gabadhii ninkan ka qabtaane gabdhihii midba meel buu ayagana ka tuuray. ninkaasi talow miyuu daroogaysnaa? waan yaabay runtii xaqiiqatan. nin daroogaysan miyuu ahaa? ma nin wuxuu ahaa aad u xanaaqsan? kollay gabadhaa wuu ku tuntay, bal isagoo ku tumanaya fiiriya. bismi illaahi araxmaani araxiim. runtii waxay noqotay arrin lala yaabo oo aad iyo aad loola yaabo. qof nin dhan oo soomaaliyeed oo sidan gabar meel shaarica ama waddo ah oo dadkii oo dhan wada fiirsanayaan ugu dilayaa. ama walaashii ha noqoto ama gabar la dhalatay ha noqoto ama mid uu dhalay ha noqoto. dabcan ma dhali karo, ninku nin yar buu ahaa. wax sidan oo kale u gelaya weli maynaan arag. marka ummadda soomaaliyeed waxay ku noqotay fajiciso iyo la yaab. saynu naqaanaa wiilasha dhallinyarada ah gabdhaha ay walaalaha yihiin markay soo kacaan tarbiyadooda way ilaaliyaan oo way ka qiiroodaan oo gabdhaha way dabagalaan oo gabdhaha way ilaaliyaan. laakiin gurigooda markay imaadaan ee gurigooda joogaan markaas ayay waxay dhahayaan iyo waxay ka qabanayaanba ku sameeyaan ooy tarbiyeeyaan oo facebookgeeda ay baaritaan ku sameeyaan ama youtube-keeda ama adiga social media wax ka mid ah hadday isticmaasho. laakiin bannaanka gabdhaha ceeb weeye in lagu dhex dilo. ninkani gabadha edbinmuna u diline aargoosi buu u dilay. runtii aargoosi baa ka muuqday dilka uu gabadhan dilay. sababta gabadha uu ku tumanayaa, bal isagoo ku tumanaya fiiriya gabadha, wax lala yaabo runtii. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. gabadha waxaan hubaa jugtaasi inay in badan ka sheegan doonto oy dhihi doonto jugtii baa igu soo kacday. sababta gabar yar oo hadda soo kacday oo waxbarasho dhigata oo saaka aroortii waxbarasho u kalahday oo galaasay u fadhiday xilli qorax kulayl intii dhulka la dhigtay nin ku tuntay dhallinyaradu xilligay ugu xoog badan tahay oo 30 iyo 20 inta u dhaxaysa jira. oo qofku xilliga uu gaara adeegiisii iyo awooddiisii iyo quwadiisii ninka raggii uu gaara ah. runtii waxay noqotay arrin mucjiso ah oo soomaalidii nin iyo dumar welibana raggu waa runtii xaqiiqatan agtooda lagama mara gabar hortooda sidan loogu dilaye. arrin waxay noqotay mucjiso hadalhayn badan keentay oo raggii ragga ahaayee wax falanqayn jiray ama reactionka ka samayn jiray maanta waxay noqotay arrin ay aad u falanqeeyaan oy aad uga hadlaan bay noqotay. guud ahaan soomaalidu meel ay joogtaba arrintani way kululaysay, wayna ka xumaadeen, wayna ka falceliyeen. laakiin waxaa la yidhi falcelin midee ugu qurux badnayd? waxa ugu qurux badnayd ninkii gabadha ku tumanayay ee faraxsanaa ee isu arkayay dee baarqabkii geela ku dhex jiray ee gabadhi intuu gabdhihii ka dhex qaato ka faramaroojiyey dhulka dhigtay ku tuntay oo ku duldhaanteeyey. markii intii dhabar loo xiray isagii dhannaasaa la isugu xidhay gadaal lugihiisiiyo labada gacmood qadaad la isugu xidhay uu leeyahay adeerow adeerow adeerow. dabcan waxaa laga yaabaa gabadhii ma dad uun dee magaaladii joogay baa laga yaabaa. waxaa kaloo dhici karta inay yihiin dad dee ehel la ahoo qaraabo la'a oo ka gilgishay gabadhan dhibaatada uu ninkaasi ku dhex sameeyey, haddana si naxdin darro ah oo aargoosi ah uu gabadha u dilay.
haddana faxshar iyo meel khalaa'iqdii oo dhan isugu timid uu ku dilay, haddana iyadoo waxbarasho ka soo baxday oo gabadha in lagu ixtiraamo waxbaranaysa, gabadha walaasha ah ama ina adeerta ah ama soomaaliyeed ina iyadoo waxbaranayso oo buuggeedii iyo qalinkeedii wadata aad ixtiraamto aad ahayd, oo qof waliba inuu xataa ka gaariga wado waddada gaariga ka joojiyo markay tallaabayaan ay ahayd, inaad sidaa u gasho runtii waxay noqonaysaa suuro xun bay bixinaysaa oo ah waxbarashadii inaad la dagaalamayso, gabdhaha horumarkoodii inaad la dagaalamayso, inaad horumarka bulshada la dagaalamayso. gabdhuhu waxa weeyaan sidaynu naqaanaba totaliba gabdhuhu sidoodaba gabadha waxbarata diinta ama maadiga gurigeeda ayay wax ku soo kordhisaa, aabbaheed bay wax ku soo kordhisaa, hooyadeed bay wax ku soo kordhisaa, ilmaheeday wax ku soo kordhisaa, oo kuwa ugu qiimo badana waxay wax ku soo kordhisaa ninkeeday wax ku soo kordhisaa. gabadha waxbarashada diineed welibana taqaana, xaqiiqatan ta maadigana waa la mid, laakiin ta midda diinigaa ka horraysa. ilmaha ay dhashaa way ka qiimo badan yihin, wayna ka hormaraan ilmaha kale. maadigana waa saas oo kale, lianna buuggay ilmuhu maanta soo qaataan ama maadi ama diini ku soo qaataan ayay la akhrinaysaa, la muraajacaynaysaa, xil bay iska saaraysaa. ilain hooya mar walba xil bay ilmaheediiyo ubadkeeda iska saartahay. ninkani marka suuro xun iyo dhaqan xun buu bixiyey dilka gabadha uu geystay markii xaggaa la iska dhigo, oo inuu waxbarashada iyo horumarka uu ka hor imaadsan yahay. hooyadu waa madariso, inta ay yartahay markii wax la baro guriga dhexdiisa waxay noqotaa madarasada keli ahee canugu ka aflaxa ayay noqotaa. aflaxaadii ilmaha ayuu ka soo horjeeday ninkani. runtii waxaan dhihi karnaa aflaxaadii ilmaha ay dhali doonto gabadhaas iyo reerkeeda wanaagay gaari lahaayeen buu ka soo horjeeday. laakiin rag baa loo helay. waa kan isagoo ooyaya qabateen iyo hawsha aad qabateen waan ku faraxsannahay. runtii garabkiinna allaha gala ayaan idin leenahay. gabarh kasta oo dulmiga iyo dhibaatada hortiinna ama aad maqashaan ama hortiinnaba loogu geysto sidanoo kale uga dhidhiya. gabdhow idinkuna dulmiga iyo daalimnimadka joojiya, oo shalay gabadhiisaad u geliseen waad ogeydeen kuwa idinka idinla mid ah oo gabdhaha ka mid oo bahda gabdho ka mid ah ama bahda dumar ka mid ah baa sidaa gabadha u gelayay. waa inaan qabanno idinkuna saasoo kale ugu tumataan. waa inaan la aragno idinkoo dhirbaaxayo oo garaacayo oo meel ku faxsharinaya sida ragguba aad arkaysa inay u hareereynayeen. bal daawada. runtii waa ku faraxsannahay daalim walba oo dadka dulmiya in sidaasoo kale cadaaladda loo horkeeno, sidaasoo kale wuxuu mudnaa loogu hormariya shacabka. ninkaa bal fiiriya, gabadha facshar buu ku dhex garaacay, ama meel ummaddii soomaaliyeed oo dhan ay wada fiirsanaysu ku garaacay oo ku ceebeeyey oo lagu yaabo cawradeedii inuu ku qaawiyey oo uu ku fayiday. markaasuu haddana dulmi kala sameeyo wuu duubay haddana, oo waa laga duubayaa. isagu waxaan qasadkiisa ma ahayn baa laga yaabaa, laakiin ilaahay baa ku fashilinaya subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala waa meeshay dhihi jireen ruba daaratin naafica. arrin dhib badan inay jirtaa laga yaabaa, laakiin anfacdadee oo cagsi ku noqota. marka gabadhii haddaynan arki lahayn se looguma wiilasha iyo adeerada iyo aabbayaashaasi ninkaas sidaa intay u figeeyaan oy u jeebeeyaan sidaa mayna u galeen. laakiin duubistii baa ina caawisay. waxaan rajaynayaa gabdhihii shalay gabadha ayaguna si dhuxusha cunsiiyey, ee carada cunsiiyey, ee baqa iyo caanaha dhintay cunsiiye, ee qashin oo dhan isugu geeya dhalada u jejebiyey, ayagana in saasoo kale loo galo oo loo ciqaabo. ciqaab bay mudnaayeene ayaan rabnaa. bulshada soomaaliyeed meel ay joogtoba waxaan leenahay xaqa ha loo heeliyo. xaqa u heeliya, dulmigana ka heeliya. xaqa u heeliya, dulmigana ka heeliya. daalimkuma guulaysto. daalimkuma guulaysto. meel kasta iyo guri kastuu ka soo baxabaa. aan soomaaliya u diyaar garowna daalimiinta saan uga hortegi lahayn.